maalmood ku joogay magaalada Casmara ee dalka Eritrea ayaa la kulmay madaxweynaha dalkan mudane Asiya Safawarqi labada madaxweynena waxay yeesheen wada hadallo maalintii shalay ah waxay ku yeesheen qasriga sidoo kale maantana waxay yeesheen wada hadallo kale dheeri ah waxaana laga soo saaray oo nuxurkii safarkan lagu soo koobay warmurtiyeedka wadajirka ah ee booqashada Eritrea ku yimid madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa booqday dalka Eritrea muddadii u dhaxaysay 10 ilaa 11 bisha Janaayo ee 2020 kadib martaqaad rasmi ah oo ka helay madaxweynaha Eritrea mudane Asiya Safawarqi intii lagu guda jiray booqashada labada madaxweyne waxay yeesheen wada hadallo qoto dheer oo ku aadan xiriirka labada dhinac iyo arrimaha gobolka ee danta guud labada madaxweyne waxa iyaga oo ku qanacsan isla qireen kobaca ballaaran ee ku yimid iskaashiga labada dhinac laga soo bilaabay heshiiskii wadajirka ahaa ee bishii Julaay 2018 ay kala saxiixdeen kaasi oo ku qotomay saaxiibtinimada iyo iskaashiga loo dhan yahay labada madaxweyne waxay sidoo kale bogaadiyeen horumarka laga sameeyay iskaashiga u dhaxeeya Soomaaliya Eritrea iyo Ethiopia oo ku saleysan heshiiskii saddex geesoodka ahaa ee bishii September ee 2018 labada madaxweyne waxay hoosta ka xariiqeen in ka sokow caqabado iyo dhibaatooyin daba dheeraaday xaaladda gobolku inay tahay mid suurto gelinaysa in la helo iskaashi waara oo waxtar leh oo ka dhaca geeska Afrika madaxweyne Asiyaas iyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxay mar labaad ballan qaadeen xoojinta dadaalkooda ku aadan in la dardar geliyo heshiiskii saddex geesoodka ahaa iyo guud ahaan iskaashiga gobolka xaaladda Soomaaliya labada madaxweyne waxay bogaadiyeen horumarka la taaban karo ee la gaaray iyagoo isla markaana tilmaamay in dib u dhiska buuxa ee Soomaaliya aan wali la gaarin halkii la rabay tani waxay ugu horeyn u baahan tahay yagleelidda hay'adaha dawladeed oo xoogan isla markaana wax ku ool ah sida hay'adaha difaaca iyo amniga iyo sidoo kale dib u soo nooleynta dhaqaalaha dalka iyo kaabayaasha bulsho sidaas si lamida waxay isku afgarteen inay laabaan dadaalka lagu xoojinayo madax bannaanida nabadgelyada iyo ammaanka qaran ee Soomaaliya iyo in sare loo qaado horumarka dhaqan dhaqaale ee Soomaaliya labada madaxweyne waxay dhammaan saaxiibada Soomaaliya iyo gobolka ugu baaqeen inay taageeraan go'aanka Soomaaliya ee ku saabsan inay dejiso arrimaha hortobinta u leh iyo inay xoojiso hay'adaheeda qaran iyo awoodeeda madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu madaxweyne Asiya Safawarqi uga mahadceliyay martisoorka iyo garab istaaga joogtada ah ee Eritrea ay la garab joogto dawladda iyo shacabka Soomaaliya waxa lagu soo saaray Casmara Eritrea 11 bisha Janaayo 2020